بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka warbaahiye ee magaalada Shanghai kusoo dhawaada barnaamijkii Maadeys iyo Madadaalo oo maanta aynu idinkugu hayno dhacdo la yaab leh barnaamijku waxaa sidoo jira halkan idinkaga soo jeedinaya Cabdishakuur Shakra iyo Safwa Barre أنا هو إن أسوي نجوها قبل دونتان برنامج كانوا معنا توين وكسو قادنين حبين أن إسلينا هو مدحيس قلني صداوة ياشينا هذا بقى صدان ليا بكلا يا وحي كبلا بني ساسدتان gabar u dhalatay wadanka Malaysia oo lagu magacaabo Aliya ayaa waxay soo bandhigtay arrin ay la yaabeen dad fara badan qaar kale oo kamid ah bulshooyinka caalamkan ay ku tilmaameen mid dambi ah hase ahaatee ay muuqatay inay ku muujinaysay awood ay u leedahay inay dhinac kasta isku qalloocin karto gabadhan oo marna aadan qeexi karin qaabka ay u dhaqmayso ayaa waxa ay iska dhigaysaa in ay salaad dukanayso markaasina ay rukuuc galayso kadibna ay si la yaab loogu sujuudayso dhankii ay u rukuucda mooyee dhanka kale arrintaani ayaa run ahaantii ah mid dambi ah oo gabadhaani ay u muuqatay inay salaada ku ciyaarayso inkastoo la tilmaamay inay ahaan yartahay isla markaana aysan wali qaangaarin balse waxaa dhanka kale dadkii daawaday ay ku noqotay arrin mucjiso oo ay aad ula yaabeen si kastaba ha ahaatee ma ahan mucjisadii ugu horeysay ee ka dhacda dunidan aynu ku noolnahay ase ahaatee tani ayaa noqonaysa mid qaabka ay u dhacayso oo muran fara badan ka dhashay waa hagaag daawadayaal waxaa intaasi inooga eg barnaamijkii Maadeys iyo Madadaalo oo maanta aynu ku soo qaadanay dhacdo ku saabsaneed gabar Maleeshiyaan oo dad fara badan ka yaabisay waa tabintii Cabdishakuur Shakra iyo waliba Safwa Barre intaynu ku kulmayna barnaamijkan lamida waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo